السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته ودنا كده جيسانيسا وبرنامج كان الظهر نمو هذه الجورة لكده جيستان رجاي برودكشن تي في يوتيوب ورك الظهر نمو حاول دور كرون رجال الزارة خير وهل أرين كدل بدل دلك الروشكا كوفيد 19 خلاف كده عوري مع ملاذ هيرشبالية بطلين قال مدو حقيقي سيكيس كيوجوري كورونا فيروس دولة تركيا أو كهذا شيء سيدا أي وأرى قرشها أبي أحمد وضح هذا الله دولة فدرالك الصومالية يوم مملكة صوماليلاند waare oo shaqo joojin ku sameeyay wasiir diiday amarkiisa maamulka magaalada Muqdisho oo lagu buufinayo sunta looga hortago coronavirus maamulka galmudug ayaa xaqiijiyay kiiskii ugu horeeyay ee coronavirus waxaana ka hadlay wasiirada caafimaadka dowlad goboleedka galmudug Nimco Maxamed Cabtoosh ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horeeyay ee cudurka halista badan ee COVID-19 laga helay deegaanadaasi wasiirada ayaa sheegtay in qofka laga helay xanuunka haatan lagu hayo isbitaalka weyn ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta sidoo kale Nimco Maxamed Cabtoosh ayaa carabka gobolka mudug dhufatay in ay jiraan dad kale oo looga shakisan yahay cudurka coronavirus kuwaas oo ay shaacisay in ay kula sugan yihiin magaalooyinka Dhuusamareeb Guriceel Aawudwaaq oo hoos tagta maamulkaasi wasiirad Nimco ayaa sidoo kale intaasi ku dartay maamulka uu haatan diyaariyay isbitaal hadii xaalado soo baxaan lagu daaweeyo ugu dambeyntii waxa ay ugu baaqday dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada galmudug in ay muujiyaan taxadar isla markaana ay qaataan talooyinka caafimaad hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo marka ka dambaysa cudurka COVID-19 uu ku sii baahayo gudaha dalka Soomaaliya kaas oo kiisaskii ugu badnaa laga helay magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iyo hadda shaacisay kiisas gaaraya ilaa iyo 237 qofood iyadoo oo dhimashaduna ay marayso 8 ruux xanuunka halista badan COVID-19 ayaa khilaaf ka dhex abuuray maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Puntland waxa haatan soo shacabaya khilaaf xooggan oo u dhaxeeya labada maamul Hirshabelle iyo Puntland kaas oo ka dhashay xakameynta cudurka faafa ee coronavirus ee dhawaan ka dilaacay dalka Soomaaliya khilaafka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Maxamed Deni uu faray ganacsatada deegaanada maamulkiisa in aysan raashin u iibgeynin deegaanada kale sida maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle Deni ayaa arintan oo saameyn ku yeelatay reer Hiiraan ku sheegay mid lagu xakameynayo cudurka coronavirus oo haatan farabaan ku haya Soomaalida waxa aan halkan ugu soo jeedinayaa ganacsatada reer Puntland iyaga oo eegaya go'aamadii xanibaada oo aan ka soo saarnay in la joojiyo badeecadaha loo iibgeeyo meelaha kale ka baxsan Puntland si aan qiimo koror u imaan ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Deni dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Hirshabelle Ali Jayte Cusmaan oo ka jawaabay arintan ayaa shaaciyay in wax laga xumaado ay tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland isagoo oo sheegay in ganacsatada maamulkaas iyo kuwa gobolada dhexe uu ka dhaxeeyo xiriir ganacsi oo aad u xoogan sidoo kale gudoomiye Jayto oo warbaahinta uga waramay magaalada Beledweyne ayaa raaligelin ka dalbaday madaxweyne Dalwi wuxuuna wacad ku maray hadii uu bixin waayo in ay qaadi doonaan talaabo ka dhan ah midda ay qaadeen sida uu hadalka u dhigay waxa aynu qaadi doonaa talaabo ka daran tan uu maamulka Puntland qaaday waxa dadka Hiiraan uga yimaada raashin ka soo dega dekada Boosaaso balse halkan waxa laga qaadaa khudaarta caanaha xoolaha iyo badeecado kale ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay hadii ay si socoto arintan in ay kor u qaadi doonaan ka maamul ahaan lacagaha anshuuraha ee xoolaha iyo khudaarta laga qaado gobolka Hiiraan ee loo geeyo magaalooyinka maamul goboleedka Puntland ganacsatada waxa aan u ballan qaadaynaa in aan anshuur dhaaf u sameeyno badeecadaha ay ka keensadaan Puntland bedelkeena waxa aan kordhinaynaa anshuurta xoolaha iyo khudaarta laga qaado gobolka Hiiraan ayuu yiri gudoomiye Jayte khilaafkan ayaa durba saameyn ku yeeshay xiriirka ganacsi ee Hirshabelle iyo Puntland iyadoo dhibaatada ugu badan ay soo gaartay ganacsatada labada dhinac ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa faahfaahin ku bixiyay
faahfaahiyey wadahadallada qadka telefoonka ah oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay dalka Ruushka ka dalbatay in ay ka gacan siiyaan la dagaalanka cudurka safmarka ah ee coronavirus. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu Sergey Lavrov kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo adkeynta iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ruushka. Waxa uu raaciyay waxaan wada hadal muhiim ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov. waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ku aadan dadaalada lagu xakameynayo COVID-19 ayaa qoraalkiisa lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ruushka ayaa la filayaa in uu ka jawaabo codsiga ra'iisul wasaare Khayre isla markaana uu Soomaaliya u soo diro qalab caafimaad iyo dhaqaatiir ka qayb qaata xakameynta COVID-19. kiisaska COVID-19 ee Soomaaliya ayaa marka ka dambeysa sii kordhaya. Dowladda Turkiga ayaa markii ugu horeeyay ka hadashay dadaalada la rabo in dib loogu furo wada hadallada muddo badan hakadka ku jiray ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. Mehmet Yilmaz safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulankii ay dhawaan Addis Ababa ku yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Bixi Cabdi, kaasi oo garwadeen ka ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isagoona lahaa qorshaha kulankaasi. Safiirka ayaa kulankaasi ku tilmaamay horumar muhiim ah oo laga gaaray wada hadallada maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya, midaasi oo dhalinaysa isku soo dhawaansho labada dhinac ah gaar ahaan madaxda. Mehmet Yilmaz ayaa sidoo kale bogaadiyay taaligelintii uu reer Somaliland siiyay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo taasi oo ku aadanayd xasuuqii dowladii kacaanka ay ka geysatay deegaanada maamulka Somaliland. Mehmet Yilmaz ayaa ka dhawaajiyay in dowladda Turkiga oo ay Somaliland u aragto mid la safan dowladda federaalka Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay wada hadallada labada dhinac isla markaana ay ka shaqeyn doonto isku soo dhawaanshahooda. Safiirka Turkiga ayaa waxa kale oo uu soo dhaweeyay cid kasta oo labada ka riixaysa furitaanka wada hadallada iyo dadaalada dib loogu furayo, midaasi oo ay ka qayb tahay qorshayaasha Abiy Ahmed oo ka leeyahay wada hadallada. dhawaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mowduuca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa ku kulmay Itoobiya. Raaligelin baa dhacday waxayna ahayd horumar taagan oo aad u wanaagsan, gaar ahaan raaligelintii madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba aqbalaadiisii. Arrintan waxa u aragnaa in ay tahay natiijo wanaagsan ayuu yiri safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya. waxa uu intaasi ku sii daray kaliya waxay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhammaystiro, waayo wada hadallada maamulka Somaliland iyo Soomaaliya wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. waxaan mar waliba leeyahay dadka hawshan qaban doona hagi doona ee isku dubaridaya waa dhinacyada uu wada hadalka u dhaxeeyo. waxaan rabaa in aan mar kale ku celiyo in doorkayagu yahay dhexdhexaadin, sidaas darteedna anagu kaliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta. taas anagoo kaga duulayna ayaan dhinacyada ka rabnaa in ay anagana hagaan. dabcan anagu talooyin iyo soo jeedinaba waanu ku lahaan karnaa ayuu yiri danjiraha Turkiga u jooga dowladda magaalada Muqdisho. dadaalada lagu rabo in ay dib u furmaan wada hadallada Soomaaliya ee maamulka Somaliland ayaa muddooyinkii dambe sii kordhayay iyaga oo ay soo ifbaxayeen qorshayaal uu Abiy Ahmed dabada ka riixayo si ay u furmaan wada hadallada. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaqo joojin ku sameeyay wasiir dowlihii wasaaradda dastuurka maamulkaasi Xildhibaan Saadaq Mukhtaar Cabdulle kadib warqad uu soo saaray. qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka uu si buuxda u jabiyay amarkii madaxweynaha ee ahaa in aan la isugu iman karin kulamo dadweyne, isagoona lagu eedeeyay in uu shalay ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar. amarka la sheegay in uu jabiyay Xildhibaan Saadaq Mukhtaar Cabdulle ayaa la xiriira mid looga hortagayo cudurka coronavirus kadib markii dadka u geeriyooday uu ka mid
noqday wasiiru dowlihii wasaaradda cadaaladda maamulkaasi marxuun Khaliif Muumin. Hirshabelle ayaa geerida mas'uulkaasi kadib mas'uuliinteeda oo ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxa ay isgeliyeen xaalad go'doon ah ama karantiil si looga xakameeyo cudurka faafa ee coronavirus oo ah mid safmar ah. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay kiisas gaaraya ilaa iyo 237 qofood, waxaa tirada ugu badan ay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ee magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay wadooyinka iyo suuqyada qaar ee magaalada Muqdisho ku buufiyay sunta looga hortago faafitaanka cudurka halista badan ee coronavirus, iyadoona uu ololaha daahfuray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Firish. Maamulka gobolka Banaadir ayaa arrintan u adeegsaday booyado gaar ah oo sunta lagu soo buuxiyo si looga hortago viruska sababa xanuunka COVID-19. Gudoomiye Cumar Firish oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ololaha uu socon doono ilaa laga adkaanayo kiisaska cudurka coronavirus ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in la gaarsiin doono dhammaan xaafadaha kale ee caasimadda iyo goobaha kale ee muhiimka ah dadka isugu tagaan. Firish ayaa sidoo kale intaasi ku daray in magaalada Muqdisho ay la mid tahay magaalooyinka kale ee caalamka ee uu ka socdo ololaha lagula dagaalamayo cudurka COVID-19. Ugu dambeyntii wuxuu ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan xakameynta cudurkan una hoggaansamaan awaamiirta dowladda. Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyay COVID-19 iyada oo laga diiwaan geliyay ilaa iyo 237 kiis, waana tiradii ugu badnayd ee guud ahaan dowladda Soomaaliya ay soo gudbisay.